wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyay geerida Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. marxuum Xasan Abshir Faarax waxa uu ku geeriyooday magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga oo waayahan uu ku xanuunsanaa. dowladda Soomaaliya ayaa u qaaday dalka Turkiga si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad oo ugu dambeyn uu ku geeriyooday halkaasi. xasan Abshir Faarax waxa uu ku barbaaray deegaanada Puntland isagoo oo ku biiray ciidamada lixdameeyadii sanadkii 1972 waxa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. 1976 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool isagoo oo sanadkii 1977 uu ka qayb galay dagaalkii u dhexeeyay Itoobiya iyo Soomaaliya. sanadkii 1978 waxaa loo magacaabay Xasan Abshir Faarax gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. sanadkii 1982 waxa uu noqday xogayaha guddiga xisbiga ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xilkan oo uu laba jeer qabtay. 1987 ayaa waxaa loo magacaabay danjiraha wadankaasi Jarmalka. isla sanadkaasi ayaa haddana loo magacaabay danjiraha dalkaasi Jarmalka. markii uu dalka burburka ka dhacay waxa uu qayb weyn ka qaatay dib u heshiisinta ummadda Soomaaliyeed. sanadku markuu ahaa 2000 waxa kale oo uu door lixaad ku lahaa shirkii cad ee lagu soo doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan, waxaana dowladdaasi uu ka soo noqday wasiirka kalluumaysiga. sanadkii 2002 Xasan Abshir Faarax Allah u naxariistay waxa loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dowladii markaasi cagta lagu soo dhisay, waxaana uu la soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray oo markaasi ugu dambeeyay sida dowladii Sheekh Shariif, Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ka ahaa xildhibaan. marxuumka Allah u naxariistay dowladda Soomaaliyeed ayaa u qaaday dalkaasi Turkiga halkaas oo lagu dabiibayay oo ku geeriyooday. waxaa marxuumka Allah u naxariistay Xasan Abshir Faarax taasi u diray madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, guddoonka baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre.